xubna ka socda hoggaanka ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda ayaa booqasho ku tagay kuleedka YMCA oo ay wax ka bartaan arday kala duwan oo qayb ay ka yihiin ardayda Soomaaliyeed. Mas'uuliyiinta oo horkacaya wakiilka ardayda qaranka Soomaaliyeed ee Maqsa qaybteeda dalka Uganda Cabdiqaadir Cumar Cabdilla ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay gudaha kuleedka YMCA. waa kuwana qaar ka mid ah ardaydii ka hadashay kulanka. gudoomiye mar labaad iyo mar saddexaad kusoo dhawo YMCA Comprehensive Institute Buwambo Campus. waxaan aad ugu faraxsanahay booqashadaada. runtii tani waxa marqaati ka tahay ay muujinaysaa ka warqabka iyo sida uu dhiiran tahay inaad ka warqabto ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Uganda meel waliba ay joogaan. taasoo macnaheedu tahay inaad halka maanta noogu imaaday adigoo jooga meel intaasoo kiiloomitir naga jirto ama nooga fog aan ugu imaaday inaad ogaato xogteena sida uu noolnahay waxbarashadeena iyo caqabadaha aan kala kulano halkan. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ardayda Soomaaliyeed ee dhigata YMCA. runtii waxay muujiyeen isku duubnaan iyo hadaf. salaamiya markii koowaad ardayda Soomaaliyeed ee saldhigano oo xarunta saldhiga wax isla barano maadaama ay yihiin ardayda Soomaaliyeed waxaan markii xigtan salaamaya gudoomiyaha ardayda qaramada midoobay oo madhow la soo magacaabay walaalkeena Cabdiqaadir Fiidka. waxaan kaloo salaamayaa gudoomiyaha Yaxya Cabdullaahi Bariise oo kamid ah gudoomiyaha ardayda. waxaan leeyahay kullee alxamdulillah ardayda meesha wax ka bartaan kamid ahay. waxaan leeyahay walaalihii Soomaaliyeed waxaan leenahay marka qurbaa joogno aadan isku jecelnahay wadankeena markaan ku laabanana aadan isku jeclaano. waxaan kaloo mahadcelinayaa dawladda Soomaaliyeed oo naga warqabto oo noohay maadaama wadanka wax ka barano inoo soo magacaawday qof xaaladeena iyo dhibaatadeena iyo waxa meesha nagu haya aan u sheegan karno. marka waan u mahadcelinayaa. waxaan maanta soo dhaweynaynaa walaalkeen Cabdiqaadir Cumar Cabdalla Fiidka oo ah gudoomiyaha midowga ardayda Soomaaliyeed. waxaan leenahay aad u mahadsan tahay maadaama aad nagu soo booqatay YMCA ka warqabida aan naga warqabtayna waan kaaga mahadcelinaynaa. runtii taas waa arrin lagu farxo waxayna dhiirigelin u tahay ardayda kale ee Soomaaliyeed. runtii mana hilmaami doono waxaan mar kale ku dhahaynaa soo dhawaaw. ugu dambeyntii wakiilka ardayda qaranka Soomaaliyeed ee Maqsa ayaa bogaadiyay ardayda wax ka barata YMCA. haddii sidoo kale inta qorshaha waxyaalaha noogu jira waxaa ka mid ah inaynu sameyno tirkoob rasmiya oo ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha ku yaala dalkan Uganda taasoo iyada naftirkeeda sahli karta waqtiga aynu doonayno in doorasho cod iyo qof aynu gaarsiino madaxweynaheena ama gudoomiyaheena ugu sareeya ee midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed markaynu rabno inaynu doonano insha Allah taana waynu ka shaqeyn doonaa. dhibaatooyinka ugu badan hadda dalkan ardaydeena ku haysta waxaa ka mid ah qabyaaladii oo inta dalkii kala soo tagno qurbihii la nimid. runtii waa wax laga wanaagsan yahay insha Allah waxaan isku dayaynaa in sida ugu macquulsan ah ugu shaqeyno sidii ardayda Soomaaliyeed runtii arintaasi looga wacyigelin lahaa. waad dareemi kartaa markaad dalkaagii aad ka maqan tahay oo dal kale aad joogtid qofka Soomaaliyeed ee shalay aad dalkii ku nacbanaada ah qofka ugu jeceshahay oo dadka kale kaaga sokeeya. marka insha Allah waxaanu rajaynaynaa inaan si wanaagsan waxyaabo badan kaga qabanno oo ay qayb ka tahay waxaa la soconnaa ardayda Soomaaliyeed halkan hadda markay joogaan waxyaabaha ugu badan ama caqabadaha ama waxyaabaha ugu dhow ee markay rabaan inay jaamacad galaan ay u baahan yihiin inay safaaradda la xiriiraan iyo waxyaabo kale. waxaynu ka shaqeynaynaa haddii Allah awood laga helo inaynu wax badan ka qabanno ama wax badan isbedel wanaagsan aynu ka sameeyno markaad la tacaamulaysaan safaaradda waad rabtaan inaad aadaan high commissionka insha Allah haddii Allah awood laga helo. Bashka Ibrahim Buraale warbaahinta dalka Kampala.